بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا لها شرفت له عاوة وحافر حد نوعه شرفنا نوعه إنه نلجوه من دعاتنا ووين كمذا in badan oo adinka inaad garanaysaan oo malaynaya Sheekh Maxamuud Shibille kulay dadkiina ku yaqaanay social media ku arkay iyo kiyo toos foolka foolo arkayba waxaan malaynaa warbixin inaan hadda badan idinkaga bixiyo ma baahnidin caawa isagana la jooga muxaadaro aynu soo qaban qaabisay jamciyadan oo al-ihsan ayu insha Allah caawa noo soo jeedin doona موضوع هذا كله سوى قرآن ما أرد، لكن سنة اللي شيء وحوها الاهتداء بالقرآن. كهانون ده قرآن كو والقرآن كان جبكي بوهانون حروف كيس كلمات كيس سور كيس آية كيس دمان وهانون مركا سيدي لو بهانون لها يضدك كهانون لها كلي يعني يسوع شيء تانو باهنا بارك الله فيكم. مركا محاضرة عنوان كذا واقع إن وقت قاعدين كلهم يا إماهن أما أن إذن كقيمة دلو سيدا عرفت الله سبحانه وكالبحينا موضوع إيو لنترك القوس باريه إن شاء الله تعالى. وحال يا شيخ محمود تفضل مشكورا إن شاء الله تعالى. كل وحور بديا يا ملها موضوع يلوي من إلا قلوي وبالله التوفيق. تفضل مركلي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث لهذه الأمة رحمة، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، waxaan caawa waxayr iska xasuusinaynaa waqti aad u kooban muhiimadda ay leedahay ummaddani liibaanta labada daaroodba inay ka doonto ay ka raadiso kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala. sidaasuu ilaahayna amray subxaanahu wa tacaala. tusaalayo badanna waa ina siiyey. markii laga leexdo ama laga leexdayna liibaanta adduuniya aakhiraba way lumaan. ilahi subxana wa tacaala aayado badan oo qur-aanka ah buu kitaabkan ku tilmaamay nolosha diin iyo adduunye iyo adduuniya aakhiraba dariiqa ugu wanaagsan ee nololeed, waxaa dhaqanka ugu wanaagsan qaybaha kala duwan ee nolosha, in kitaabka qur-aanka i yahay midka jidka ugu fiican tusa, dariiqa ugu wanaagsanna dadka ku haga ama ummadda ku hanuuniya aadamaha. waxaa ka mid ah qowluhu tacaala fi suurati اlisraa: ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. wuu hooseeyaabaa laleeyahay aan u malayn. ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru اlmu'miniina aladiina yacmaluuna الصaalixaati ana lahum ajran kabiira. qur'aankan kitaabka ah idin dhex yaalla miisaskeenni iyo masaajideenni iyo telefoonnada moobaylada inooga wada buuxaay, yahdii lilatii hiya aqwam, dadka wuxuu tusiyaa, wuxuu ku hanuuniyaa, wuxuu ku hagaa, wuxuu u tilmaamaa ereyga saa doonta u dheh, oo uu tusiyaa lilatii hiya aqwam, jidka iyo dariiqa
iyo qaab nololeedka ugu toosnaan badan wey, midka ugu toosan, isu dheelitiran, aan jidkiisa laga lumin, wanaag iyo liibaan mooyeenna aan dhib lagala kulmin, dariiqaasuu tilmaamaa. yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna الصaalixaat. dadka iimaan iyo camal saalixa isku darayna, iimaan saxan iyo camal toosan oo suuban isku darana, wuxuu ugu bishaareeyaa abaalgud weyn inay aakhare ilaahay agtiisa u dheerta. adduunyada noloshii dhammaystirnayd ee dheelitirayn waxaa u dheer, aakharana ajir weyn iyo jannaa u dheer. aayadda waxay tilmaantay hanuunka qur-aanka uu hanuuniyo dadka ifka nolosha kuma eka, aakharana waa la gurtaa midhaheeda. adduunkana nolol wanaagsan baa lagu noolaadaa, aakhirana midho wanaagsan baa laga goostaa. waxaa la mid a aayaddan isla macnaha tilmaamaysaan leeyahay aayaddii fii suurati اlmaa'ida ilahi u ku qad jaaءakum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin yahdii bihi اllaahu man itabaca ridwaanahu subula الsalaam wayukhrijuhum min الظulumaati ilى الnuuri biidnih wayahdiihim ilىa siraaطi mustaqiim. waxaa idin yimid nuur elays baxaya, iftiiminaya jidka la marayo. korontada yare hadday danto irdaha waynu garan waayeynaa. kabahagu meelay yileen ninkii bannaan dhigtay iyo ninkii qof kale ka agyaaleen way ka lumayaan. markaad hagabsatana dadka waa dardaraysaa. laakiin qur-aankana waxaa ilaahay ku tilmaamay yimid iftiin iyo ilays baxaya oo caddaynaya jidkii la mari lahaa, halka wanaagsan, halka ay tahay in laga leexdo. ilayskan lababa haddaba iftiinkan iyo nuurkan iyo caddaantiisu labadaba wuu caddaynayaa. nuurkani jidkii la mari lahaana waa kuu tilmaamayaa, meeshaan dariiq ahayn ee derbiga derderi lahaydna waa kuu tilmaamayaa. wuxuu ku lehy halkaa derbi weeye, halkaana dariiqii waay. halka haddii aad iska socon lahayd adoon iftiin haysan, meelaad dariiq moodaysay aad derbi ku dhici lahayd, ama meelaad jid moodaysa dee aad dabaq ka haadi lahayd oo dhulka un adoo madax u socdaad ku dhici lahayd. markaan iftiin jirin goodna lugta waa kuu gashaa. haddaan iftiin jirin baa waxaa la yidhaahdaa nin cadda xaaba gurtay, masiya abeesana caddiinkooda ulxaabaa intuu moodoo dhabsiyay qaniinaan, markaasuu sunta u dhintaa. mugdiga laga guranaya saa weeye. nuurun wa kitaabun mubiin. maxaa laga dhexlaa marka kitaabkaas? yahdii bihi illaahu man itabaca ridwaanahu subula الsalaam. jidka nabadgelyadaee lagu badbaado aakhare iyo adduun buu ku hanuuniyaa dadka tusaa. dadku wuxuu kala caddeeyaa, dadka waxa uu tusaa, wuxuu ku hagaa, ugu yeeraayoo tusaaleeyaa jidka badbaadada iyo nabadgelyada. adduunyadu dowladi iyo shucuubba marka la hadlayo badbaadaa la hiigsanayaa. meeshii lagu nabadgeli lahaa, si loo badbaadi lahaa baa la hiigsanayaa. badbaadadan qur-aanku kuma eka adduunka, tan iyo badbaadadii aakhira wey. yahdii bihi illaahu man itabaca ridwaanahu subula الsalaam wayukhrijuhum min الظulumaati ilى الnuur. mugdina waa ka saaraa, meel iftiinana waa geeyaa. neeftaa kugu soo noqon, nalkii tegay mugdi noqotay markuu soo noqdo, ama meel mugdi ood geedaha derbiga taabanaysa intaad ka soo baxda bannaanka iftiin meel aad u soo baxdo, waxaad moodaa in hadda lagu soo nooleeyo, nafta kugu soo noqoto, neeftaa kaa soo bixi. sidaa weeye qur-aankan qabsashadiisa iyo raacistiisa iyo ka leexashadiisa iyo ka tegitaankiisu. qofkii qabsadaayo waa qof mugdi ku jiray oo meel iftiina u soo baxay wey. indhahagaa wax arkaya, dhibki iyo khayrkaad kala arkaysaa, waxa saxan iyo waxa qaldan buu ku kala tusayaa. aakhirkana waxaa leeyahy wayahdiihim ilaa siraaطin mustaqiim. jid toosan buu ku hanuuniyaa. waxaa saddexaadoo lamid a aayaddii suuratu الzumar allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mathani taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum ثuma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilى dikri اllah
dalika huda allaahi yahdii bihi man yashaau kaasi waa hanuunka ilaahay kitaabka la tilmaamay dhowr tilmaamood baa qur-aanka laga bixiyey kadib baa la tilmaamay hanuunka qur-aanka ee laga sheekeynaya inuu kaaya tilmaamaha qur-aanka waxaa ka mid a axsana alxadiid markii wax laga sheekeeyo ama qisas hore laga sheekeeyo ama wax soo socda laga sheekeeyo wax runta ka turjumaya oon been ahayn hadalkana kaga gaabsanaya ee qisada intan ay nolosha qofku uu u baahan yahay markii taariikh laga sheekeynayo iyo qasaska qur-aanku waa kala laba qur-aanku qasaska iyo ambiyada marka taariikh lagama sheekeeyo sababtoo taariikhna waxaan u naqaanaa maalintaasuu dhashay meel heblow ku dhashay qoysaasuu ka dhashay saasuu u soo barbaaray qur-aanku intaas kama sheekeeyo haddaan xikmad iyo macno ku jirta loo sheegin wuxuu ka soo qaataa qisada laga sheekeynayo inta noloshaada taabanaysa adduun iyo aakhiro walidaalika qur-aanka qasaska waxaa loo sheegaa oo keliya wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ciddii garanaysa unbaa fahmi karta wax caqli lagu qaato baa qasaska loogu talagalay cibro iyo in lagu waana qaato ay cashir waayaha nolosha noqotaa loogu talagalay maalin heblow dhashay dee iyo meer heblow ku dhashay cashir iyo waaya maaha waa taariikh saas darteed qur-aankana waxaa nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan kitaab isu wada eg weeye kitaab isdaba marsan maaha kitaab iskhilaafsan maaha waxa uu ka sheekeynayo ama noloshan ama ta dambe ama noloshan sida u cabirayo ama tusaale iyagoo taariikh hore uu siinayo ama axkaamta uu dadka u jireeyayo waa wax isu eg bimacnaa wada socda wey isku wada toosan wax isku wada toosan weeyo iswada dhammaystiraya maaaniyana waa lamaane qur-aanku mar waliba noloshu inay dhan u dheelida lama ogola waa isu dheelitiraa haddii janno laga sheekeeyo naar baa laga sheekeeyaa haddii khayr laga sheekeeya shar baa laga sheekeeyaa haddii dad xunxun laga sheekeeya kuwa fiifiican baa laga sheekeeyaa nolosha waxaa lagu barayaa kuwan noqo kuwan ha noqon haddii laga sheekeeyo in cibaadada la badiyo waxaa lagu lamaaneeyaa inaan awooddaada wax ka badan la samayn haddii laga sheekeeyo xuquuq lagugu leeyahay inayna xuquuq kale ku xadgudbin baa laga sheekeeyaa haddii qof dhib idin dhex maro dhibka xaq u lahaa inuusan dayicin baa laga sheekeeyaa hadday xuquuqda dunida la macaamilayo xaqaaga inaad qabsato haddii laga hadlo laakiin aadan xadgudbin baa haddana laga hadlaa xukun iyo awood haddii laga hadlo ninkani madaxda xuquuqduu leeyahay haddana waxaa lagu lamaanaya isna xaqa lagu leeyahay haddii waxa u bannaan laga sheekeeyo haddana waxaa ka xaaraantaa lagu lamaaneeyaa haddana waxaad ajir ka helaysaa laguu sheego waxaad naar ku gelaysaa laguu sheegaa haddana weligeed noloshani waa isu dheeli tiran tahay adduun iyo aakharo qofku inuusan dhanna u dheeliyin maaaniya sidaasuu u wada socda maxaa layna barayaa mujtamaca haddaad la hadlayso weligaa waciidun ha ka sheekaynaya naar si lagu galo dee janno si lagu galana ka sheekee dadka haddaad naarta uun ku shubto ood naar uga digto dee dariiqay jannaday qaadi lahayn u sheeg haddaad jannaday geli lahayn u sheegto dee wixii naar gelin lahaa ee ka leexin lahaana u sheeg haddaad xaquu leeyahay barto ka lagu leeyahayna bar isaga xaq baad leedahay haa hadda dunida waxaad aragteen maanta xuquuqda dumarka okay weli ma aragteen xuquuqda iyaga lagu leeyahay isu dheelitir badan baa lumay marka sax xuquuq bay leeyihiin laakiin xuquuqday leeyihiin dadka marka laga sheekeeyo xuquuqda iyaga lagu leeyahayna waa in laga sheekeeya waa wixii isu dheelitirmaan haddii waalidka xaquu leeyahay maantao dhan laguu sheego waalidkuna waa inuu ogaadaa isna xaq in lagu leeyahay oo ilmuhu xaq ay ku leeyihiin waalidkaa oo gaala xaqna kugu leh diinna kugula dagaalsan baa laleeyahay tanna ha ka yeelin tiisan ha dayicin wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطicumaa ha yeelin laakiin diin buu igula dagaalamay ma diidaysaa xaqay u lahaa maya wasaaxibumaa fi dunyaa macruufa gaal baan diin gaal col u nahay ma keenaysa inaad ku xadgudubtoo dulmida maya walaa yajrimanakum shaanaanu qowmin
alaa an laa tacdil an saduukum cani lmasjid alxaraami an tactaduu diin bay mise beydka ilaahay bay kuu diiday macnaheedu maaha inaad dulmiday in la ogolyahay wixii xaqaagaa ilaasho faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wattaqu llah ilahay kaga cabso waxaa leeyahay marka aayaddu waxay tilmaamaysaa maaaniya lamaano wey ka ilaalinaya qofku dhinaca inuu dheeliyo nolol isu dheelitiran baa la doonaya adduun iyo aakhiraba saacatun wa saaca taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum dadka ilaahay ka baqaya qur-aankana macnihiisa garanaya markay maqlaan ama akhriyaan ama dhegaystaan jirkooda dareen buu ku reebaa qalbigoodana dareen buu ku reebaa kadib aakhirkii waxaa la yidhi ilaahayna wuu ku hanuuniyaa dadka ilahay jinka markuu inooga sheekeynayay waxyiga ilaahay markay maqleen ee nabiga alay sl intay ku soo leexdeen xilli salaad subax isagoo dadka tukinaya ay qur-aankii dhegaysteen fii suurati alaxqaafna waxaa laynagu yihi waid sarafnaa ilayka nafaran min aljini yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin dadkoodii bay digniin gaarsiiyeen maxay dadkoodii u sheegeen qaaluu yaa qowmanaa inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan limaa bayna yadayh yahdii ila alxaqi wa ilaa ariiqin mustaqiim kitaab ka dambeeye kitaabkii nabi muuse ee towraadoo la soo dejiyey baanu maanta soo dhegaysanay kitaabkan maxaa ugu muhiimsanoon ku tilmaami karnaa yahdii ila alxaqi jidka xaqa ee saxan ee toosan buu dadka ku hanuuninaya ee ku hagayaa jidkaa toosan xaqa iyo jidka toosan buu ku hagayaa dadka mar kalena suurat ljini waa suurat alaxqaaf suurat ljini ilahi waa kii ku yihi qul uuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljin faqaaluu inaa samicnaa qur'aana cajaba qur-aan la yaab leh baan soo maqalay oo muxuu yahay layaabku la yaab xumaana maaha qur-aan qiimihiisa iyo wanaagga uu dadka ugu yeerayo iyo macnaha weyn uu xambaarsan yahay aada nooga fajiciyey oon wax la barbar dhigaba lahayn baan maqale weya la yaabkani inaa samicnaa qur'aana cajaba maxaa ka dambeeya yahdii ila rushdi hanuun buu dadka tusinayaa dariiqa saxda ee toosan buu dadka tusaya qur-aankaanu soo maqalay annagu tii markay noqdeen dadkoodii ku yidhaahdeen baa nabigana loo waxyoonayaa loo sheegayaa dee nebi maxamed insi buu ahaa jinkiiba hadday saa u garteen innagu inaan garan weyna sax maaha inta waa tusaalayaa u dhowr aayadooda oon rabnay inaan ku tilmaano qur-aanku baqara markaad ka soo bilowda inuu hanuun yahay baa ka bilaaban aliflaam miim dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiinay ka bilaabatay ilaa halkaa dambana u dambeeyey qur-aankana saasuu kula socotaa meel kastood martaba qur-aankan inuu jidka saxdaa dadka ku hagayo shacab iyo dowladba ganacsiga iyo guryahaba waxbarashada iyo tacliin haddii la joogo qoyska hadday noqoto dhowrta saddex tusaale wakhtigu oo yar dartii aan saddex tusaale bixiyo qoyska marka laga hadlayo qur-aanku jidka ugu saxsan buu dhammaan axkaamta qoyska dadka ku hagaa suuraة الbaqara aayadda wاlwaalidaatu yardacna awlaadahun hadday mujtamaca muslimku qoysku qaadan lahaa sida ay tahay khilaaf qoys iyo isqabqabsigu ma bateen wuu yaraan lahaa wixii طabciga basharkaa marka laga tago aayaddaasi 4 qaacidaa dadka lagu siiyey oo qoyska lagu dhaqo hadday labada isqabaayay 4taa qaacida raaci lahaayeen dhib badan baa yaraan lahaa laakiin adigu waddadaa gaari nimaan jidka aqoon gaari si loo wadana aqoonni hadduu kaxeeyo soo barbagaarintuu ka hortagay inuu dhinaca ku xoqo ama dabada kaga dhaco ama wejiga ku dhufto maaha guriga waa la imanayaa reer baa la dhisayaa noloshaa la gelayaa si loo maamuli lahaa gurigana lama yaqaano lama baranin qawaaciddii ilaahay ugu talagalay lama yaqaan marka usbuuca u horeeya ama labada habeen u horeeyaba qabkiibaa isjeeday baa lagu leeyahay qac qoorta la isla wada gelayaa ayaddani waxayna bartay marka koobaad ninku shaquu leeyahay haweentuna naagtuna shaqay leedahay qofba shaqadiisii inuu ka soo baxo inuu ku dadaalo yaqaan baa la doonayaa
waalwaalidaatu tusaale yurdicna awlaadahunna hooyooyinka ilmaha nuujintooda iyagaa laga rabaa hadday tiraahda nuujin maayo dee khilaaf bilowgii waa hadday tiraahda markay sanadkaygaa nuujina sanadkaaga nuujina dee waxaa looga fadhiyin waayo ninkana maxaa waajibkiisa ka mida wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf isagana reerka noloshoodii iyo biilka isagaa laga rabaa dee bishii way dhammaatay biilka qaybteedii waa tale qaybtaadii kusoo rid hadduu yidhaahdo sida westereenka ka jirta westereenku waa iska bulo wada degan qoyskoodu nimanka reer galbeedka iyo yurubtu ninkii naagtu biilka isku darsadaan korontada mid walba qaybtiisuu jaab ka soo bixiyaa kirada mid walba qaybtiisoo bixiyaa biilka mid walba qaybtiisoo bixiyaa gaariga shidaalkiisa iyo inshuransigiisa iyo caymiskiisa mid walba qaybtiisuu bixiyaa mid walbana akownkiisa gaarkaa wuxuu ku soo dhacaa waa soo iska bulo wada degan maaha qoys weeye laakiin biilkiiyo nolosha waa iska bulo biilka isku darsata waay marka qoyska hooyada haddii la yidhi ilmihii iyo hawshii iyo nuujintii gudaha lagaa rabaa isagana hawshii reerku ku deganaan lahaa iyo dibaddaa laga rabaa iyo noloshii biilkii kiradii caafimaadkii waxbarashadii isagaa laga doonayaa dowladaha soomaydaan arag dowladdu ma dhisnaan karta haddeen wasaarad daakhiliya iyo wasaara khaarijiya lahayn sooma mid baa dumaya taa waa tusaalaa laga soo qaatay biilka iyo nuujinta laakiin mid walba guriga hawl buu leeyahay kaalin baa shaqada reerka kaga aadanaya gurigan soo dhisnaado qof walba shaqadiisa waa inuu yaqaan oo uu qabanayo qodobka koowaad waay qodobka labaad maxaa layna siiyey dadku isku awood maaha qofka keliyana xilliyada kala duwan isku awood maaha qofku mar waa xanuunsan yahay marna waa caafimaadsan yahay mar waa xoog badan yaho waa daliya yahay marna waa yeelayo waa duqoba waa tabar yareeya dadku xooggu isku xoog maaha caafimaadkuna isku caafimaad ma wadaa hooyada lafteedu marna walac weeye mar uur bay leedahay mar umul weeye marna caadi weeye xoog weeye qofku isagoo shaqadiisa yaqaana una diyaara ba awoodiisa wax ka baxsan marar badan iman karaan usan awoodiisa awoodin ilaahaygii aadamahan abuurtay oo arsaaqayay baaban dul saarin oon ku cadaadinin wax awoodooda ka baxsane maxaa lagu dhaqmaa qofku hadduu shaqadiisa yaqaana dadaalayana laa tukallafu nafsun ilaa wascaha midna wuxuusan awoodin in lagu dhiba maaha adna waxbaadan awoodin iyadana waxbaynan awoodin qofku in loogu dulqaato mar haddiiba wixiisii shaqadiisa yaqaana dadaalkiisana diyaar yahoo dadaalayo wixii awooddiisa ka baxsadaay inaan buuq iyo qayle iyo rabshi iyo cadaadis imanin ilaahay baaba laa yukallifu llahu nafsan illaa wascaha ka dhigay qaacidada saddexaad waxaa weeye qoysku waxna waa udub dhexaadka waana waa tiirasho ku taagan yahay waxna waa mirihii ilmihii la dhalay ah ilmaha dartii inaan la isu laynin oon la isku dhibin hooyaduna aabbaha ilmaha inayna ku cadaadinin shaqadii ku lahaa isagoo waajib ku tahoo awooda asalku ilmaha uu dhalay waalidku wax kama hagrado isaguna ugu dadaal badan yahay hadday wax si ka noqdaan ama wuxuu ka cagajiido ilmaha inaan sanka la iska gelinin oon la isku cadaadin hooyada ilmaha inaan lagu dhibin hadduu aabbuhu hooyada dabagalo kan maxaa ugu qabeen weyday kan dharka maxaa uga bedeli weyday kan maxaa xafaayadda uga samayn weyday kan muxuu yahay sariirta maxaa u gogli weyday wixii tala iyo si guuda waa gaar laakiin dabagal iyo ku raadqaad ilmaha hooyaduna aabbaha inay ilmaha ku raadqaadeen kan u samee kan yaal kan maxaa u samayn weyday ilmahaadan rabin kan ilmahan ka waardiyen inaan dhiman laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi midna ilmihiisa in lagu dhiban maaha fitrada abiicadaa keenaysa xaalaad shaada lagama hadlayo xaalaad gaara hadday soo baxaan dee waa xaalaad jiro wey jirana waa la daweeyaa laakiin asalku ilmaha iyo hooyadii iyo ilmihii aabbihii inaan iyagana la isnacsiinin dhibna la dhex dhigin iyagana la isku dirin iyagana aan la isku cadaadin wey isxasuusin iyo sidanaa ficnaan lahayd marka laga soo tago oo ilmihii midhihii reerkuu dhalay uusan sabab u noqonin inuu dumo haddaad dab shidato qaacidada fuqahada usuuliyiinta sooma dhahaan faraca la qiyaasanaya waxaa shardiya alla yarjic cala alasli bilibtaal uusan asalkii looga qiyaasanayaba duminin ilmahan dee miraha reerkii beeray hadduu dumiyo faaiduu keenay mise khasaaru keenay ilmuhu waa inuusan reerka duminin laa tudaara waalidatun biwaladiha
walaa mawluudun lahu biwaladihi wa cala alwaaris min dalik shu-uunta intaa ka dhexaysa noloshu tala wadaag bay ku habboon tahaye tala marooqsi kuma habboona fain araadaa fisaalan can taraadin minhumaa wa tashaawurin falaa junaaxa calayhima aayaddii kale suuratu talaaqeeda mushawarada qoyskaana maxay ahayd adiga maaha su-aasha waxaan weydiinaya dhallinyarada waayo haweenka iyo reerka ha lala tashado aayaddii suuratu talaaq ku jirtay ahayd qur-aankii lama hayo miya wa'tamiruu soo suuratu talaaq maaha wa'tamiruu baynakum bimacruuf si wanaagsan dhexdiina talada u wadaaga ninkuna inuusan dhihin hus meesha xero ciidan ma haddii xukunka iyo maamulku midna waa isku raalli noqosho midna waa is-afduub meesha hadday xero ciidan iyo afgembi tahay waa is-afduub laakiin qoys iyo reer hadday tahay waa isqadarin iyo tala wadaag in taladii wax la iska siiyo laakiin ninka soomaaliyeed waxaa la yidhi waagii hore nin baa laga sheegay qof xaas aad u caqli badan baan qabaa buu yidhi ti igu murugtana iyadaa ii furdaamisa laakiin uma sheega buu yidhi taladeeda inaan qaatay waan ka ilaaliyaa maxaad samaysaa baa la yidhi waan ku agcalaacalaa buu yidhi kan haysta si aan yeela garan maayo tan ay haysata markaasay talooyin badan keentaa markii aan helo taladaan rabay nanaga aamus baan dhahaa markaas waxay maamaha halkudhig ka dhigeen qaarkood talaha weyn lagu tafantoofaa tafantoof baa laga qaadaa manaa burbur iyo baaba baa laga qaadaa wey rag iyo haweenku nabiga alai slam xudaybiya markii xaaladdu adkaatay ee saxaabadu xiirta ay aqbali waayeen iyaguna ka cagajiideen aada u murgeen taladii lagu cayntee maalinkaas oo musalamo ma lahayn uunku tale ay ku cayntaan bay xaasku keeni kartaa ninkuna gabadhuna inay ninka go-aanka kama dambaysta u ogolaato washaawirhum fi lamri reerku hadday markay isqadariyaan taladana wadaagaan laakiin inta kama dambaysta ee go-aankii la kala lahaa iyaduna wixii tala dhiibatay ay u ogolaato ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwamu wey reeru way dhisnaan lahaayeen laakiin ama waxbaa la isku cadaadiyaa ama ilmaha la isku dhiba ama shaqadiibabaan la kala aqoonin ama taladaan si fiican loo wadaagayn bug ha dhahda wey maalin kastaba qub iyo qac iyo qalalaasi iyo rabshaa taagan mid labaad tusaale labaad markuu sharci weynu ka hadlayo xukunka iyo dowladda dadka madaxda ahna xuquuq bay mujtamaca ku leeyihiin waxaan macsi ahayn inay uga dambeeyaan talada oo wixii dadka sameeya ay yidhaahdaan ee danguud loo jideeyay aan la daba marin wixii kalena looga naseexeeyo oo talo la siiyo iyagana waxaa lagu leeyahay dadka inayna albaabkana ka xiranin cadaaladna ku maamulaan kooda danta yar iyo tabarta daranna ay eegaan mujtamacu waa marsaa darteed kanna waa inuu xil iyo xaq dareemo marka dambena waxaa la yidhi haddii ninkii madaxda xaqaaga aad ka weydo adiga midka lagu lahaa ilaali soomaalida maxay dhaheen soomaalida waxay yidhahdaan haddaan la kala roonaanin maxay dhaheen roobku waa ma dayan bay yidhahdeen haddii madaxdu aynaan ka roonaanin shacabkii ama shacabku uusan madax khaldantay ka roonaanin hirigtan aan aragnay sowmaa hirigtan iyo yaacan iyo basbeelkan iyo waxaan gubtayn aragnay wey maxaa soomaalidu macallin bay u tahay cashir badan laakiin haddana maskaxahaan way ugu bislaatay laakiin dhaqan ahaan weli halkii hore ay joogtaa waxaa la rumaysan yahay dhaqan in loo bedelo u baahan yahay dabcan waktiguma fille waxaan rabaa inaan hal qodob kusoo gabagabeeyo hanuunka qur-aanka in la qaato laba qadiyadood baan u baahannahay suu dhab u noqdo laba arrimood baa fura u ah arrinta koobaad iimaan aan shaki lahayn inaad rumayso oon ka noqosho aqbali karin in dantu diin iyo adduun iyo aakhiraba diintaa ku jirta iyo kitaabka ilaahay
adduunkan haddii wanaag la rabo iyo aakhiro wanaag haddii la rabo in kitaabkaa ilaahay la qaato oo xalaashiisa la qaato oo xaaraantiisa laga fogaado oo xuquuqda isaga lagu saleeyo oo shacab iyo dowladba isaga la raaco lagu dhaqmo inuu kitaabka ilaahay inqaldamin ee muqadaska a yahay inaad rumaysa rumayn aan shaki lahayn aan mugdi ku jirin aan muranna geli karin taasi waxay samaynaysaa in kitaabkii qur-aanka ahaa kitaab ahaan qiimo weyn qalbigaaga ku yeesho in aqriskiisu wax weyn ku ahaado in ilaalintiisu iyo xurmayntiisu mabda iyo caqiide ay noqoto inuu noqdo mid laga ilaalinayo wax kastoo ama magac dilaya ama maqaamka iyo darajadiisa meel kaga dhacaya waxay awoodi kaa reebta waa gaar ama aqoon la-aanay kuu geyso laakiin faahfaahinta hoose iyo si loogu dhaqmi lahaa waa qodobka dambe iyo furaha labaade mabda-u waa inuu noqdaa diintani waxay sheegtay dood ma galo nabiga calayh isalatu wasalaam baa ninuu yimid malabka markii la yidhi fiihi shifaaun linnaasi dadka dawi u yahay walaalkii wuxuu yidhi shuban baa ku dhacay calooshii baa saa u shummaysa nabig wuxuu yidhi asqihi casalan malab waraabi malab sii waa tegayoo ninkii malab buu siiyey waa soo noqdo wuxuu yidhi waxba kama tarin ninkaasi dee wixii loo diray ee dawi u yahay la yidhi markuu siiye waxoogay la joogay ee calooshii istaagi weyday inayna dawo noqonaynin dareenaa galay soo maaha nabigu ku soo noqday wuxuu yihi asqihi casalan sadaqa allaahu wakadaba batnu akhiik orad malabka sii buu yihi caloosha walaalkaa been bay sheegtay ilahay baa run sheegay waa ku noqdo waa siiyey caloosha way caafimaad waa istaagtay labadaa mowqif maxay ku kala duwan yihiin nabigu halka uu istaagay sadaqa allaahu marar badan baa waxaa lagu sheegi ama lagu soo marin wixii qur-aankani sheegay amaunan sidaa u ahayn mararka qaarkood nin dan leh baa buuq iyo qaylo kicinaya ka wareegta halkii unbay kusoo urursan laakiin marba waxayna dhaheen qur-aanka abcan sunnadu waa waxyi labaad oo ku lamaan litubayina linaasi maa nuzila ilayhim wey markuu nabigu yidhi daqsiga labadiisa baal mid jeermis buu leeyahay midka kalena jeermiskaa wixii dili lahaabaa ku jira markuu biyo iyo wax ku dhacana haddii inta uu nool yahay kan jeermis kaluu ku hayaa ka kalena kor buu uga hayaa maxaa la samayn marka de cuntadii nijaas mahoo la daadin maaye wada tiimbi jeermiskii uu geliyey dawadiisii waa ku jirtaa khalaas waa dhintay jeermiskii baalkii kale loo geliyaa jeermiska dilay adduunyadoo dhan baa qaylo iyo sawaxan laga buuxiyey kan jeermis buu leeyahay laakiin dawo kuma jirto been baa la sheegay way wadeen jeermiskii la helay dawadiisii baalka kalaa laga helay aakhirkii way soo taabteen muddo markay waswaasiyeen bay dhaheen intay madaxa xoqdeen bay sooree dheheen bolesana waa ku khaldanay ninkii laakiin maalinkii istaagay sadaqa allaahu wakadaba batnu akhiika lagaa rabaa inaad taagnaato sidani macnuhu ma yahay horta naskan sharcigii ma sugan yahay haa macnihiisu sidan ma ku cad yahayoo ma yahay haa waxaad sheegaysaba aday ku jirtaa weye war aadame waxay shalay kuu sheegeen bay maanta beeninayaan wamaa utiitum min alcilmi ilaa qaliilan aqoonta aadamaha la siiyey oo dhan baaba in yar ah markaasuu ilaahaygii alcaliimka ahaa buu rabaa inuu la tartamo alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir adigu waxaan uga jeedaa inaad tahay weeye inaan iimaankaagu wax gilgilmayo oo la riixriixi kara waa inuusan hayn markaad halkaa gaarto haddaad kaba shakisan tahay in hanuunkii saxdaha uu yahay ama laguba gilgili karo ama juqjig markii lagaa siiyaba aad dib u guranayso ood dhahaysa maye mushkiladaas waa mushkilad aada u taagan wey marar badan shubahu markaan qalbigaaga yaqiintu ku jirin war la sheegay baa ku saameeya markaasaad adoo ordayaad wadaad isku sii daysaa markaasaad sinaa la yiriya see la dhihi siraaysee la dhihi
ninbaa wuxuu yidhi baa layidhi kun daliil baan hayaa ilaahay inuu jiro. nin baa ku yidhi kun daliil markaad daydayaysa ilaahay jiritaankiisa kun shaki baa kugu dhashay. markaasaad mid walba jawaab u raadinaysay waaba rafaaday waa jabtayba adigaabaa jabayoo wa ilaahay inuu jiraan caddayn u raadinayaa horta inaad caddayn raadinaysa in shaki ku gala soo maa. marar badan axkaamta sharciga waxaa idin soo maraysa waxbaa laydin sheegi markaasaa waxaad dhahaysaan maye jawaab baan raadinaynaa. ninbaa wuxuu ku leeyahy islaamku meelo badan xoog iyo seef buu ku gaaray. maye islaamku nabad wey khalad wey ayadii qur-aanka iyo jihaadka maad beenin adiga waxa la rabaa waxaa wey islaamku sax jihaad buu ku fiday maxaa mushkilada maxaa dhibo ku jira kuwa wuxuu nagu yidhi jihaadka xoog buu ku fiday qur-aanku waxaan ku dhi maxaa dhibo ku jira markisiyadiina xoog buu raash ku fidinaya oo ku difaacayay. dimuqraasi waxaad ku tilmaanteen maraykan iyo neeto xoog baad ku difaacaysaan baatilka xoog lagu difaacayaa ee xaqa xoog haddii lagu difaaca maxaa dhiba mal mushkila. marka horeba marka laga dhaadhin waxaa lagu leeyahay maya islaamku ninku dhowr naagood buu guursan karaa baa la yidhi hay desee la yeeli mal mushkila waa sax dantaasaa ku jirta mal mushkila. haddaad adiguba shakido markii dambe tani wax laga dhaa loo baahan yahay markii hore aan qalbigaaga iyo yaqiintaadu aad u bislayn. waxaa lagu leeyahay mid baa intuu ku yimaado wuxuu ku leeyahay nidaam riqi iyo addoonsigu qur-aanku diinta islaamka ogolaatay xuquuqul insaan baa jira. jawaabtu waxaa wey sax wey saasaa sax ah saa qur-aanku sheegay baa saxan. inay saxan tahayna dee adigu haddii aad jiran tahay adigu hadda aad jiran tahay jiradaada seen u daweynaa mahane tanaa khaldane seen u saxnaa maaha adaa khaldan de xuquuqul insaan baa jira kan xuquuqul insaan ku beentii wey soo dadkan nuclearka naabaalka ka ku hurgufaya maayo xuquuqul insaan ka hadlay waayo xuquuqul insaan ka hadlay dadka noolka gubaya cadaabaya Soomaa ee shucuubta dhinsa suu ceel shidaal u helaan nag ka dhigaya waxa leedahay xuquuqul insaanku maxay tahay in la badbaadiyo kan maxaad ka hadashay in lagu shaqeysto oo kuwan dalka u shidayna iyagoo nolol wada gubtayna iyagoo nolol ku wada gubtaawe ilaahay taasoo kale waa ina barayo markay saxaabada qaar kamida aakhir ashhurul hurum ay dagaal galeen يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لكن مع قرب يالله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الله واحد سمير اسمع ركدت هرت أضو هير أتنكها اللي كرت السوقات مركز وضع الله إنه مركان إنسان قمم بعد نقانه وتفكير كيسو السحية والتنبوش وككيني ميست وحن ربنا إلى هذا مرب وحني الشرع الدين هذا قبطه سيدا أي قبطه وصحنته qofkii si kala u arkana isaga khaldan marka tan inay saxan tahay ka wada hadli mayne waxaynu ka doodaynaa inaad khaldan tahay inaan ku cadeeyo laakiin haddii dib u gorato tiraado warniyo tan lama meel marin kare tan sidee baan u yar leexinaa diinta yahdi lillati aqoon an qanaacadi baan meel fiican ka joogin durbaad shakaday durbadii buu gurashaad marka difaac dad gashana sideedaba ragada xilligii reer galbeedku dunida muslimka la qabsaday rag dhowrihi khalad kasto ay leeyihiin runtii kaalin ay qaateen kaalin muglaho xusid mudan bay ahayd ragay kamid ahaayeen Abu Al Mawdudi iyo Abu Hasan An-Nadawi iyo Sayyid Qutbi iyagoo difaac lagu jiro shubahaad xawla al-islaam li difaaco laga hadlo bayagu yimaadeen waxay bilaabeen markisiyadii iyo hanti goosadkii inay weeraraan waxa la qoraya marka ishtiraakiyatu islaam islaamku inuu hanti wadaagiya in waxa laalay wixii hanti wadaag cilmiyeysan lagu lamaanayo diintuna way qabtaa la yiraahdo baa lagu wareegaysanay waxay dhaheen waraada diintan meel difaac kuma jiri karnee nimankan qurun bay huwa yihiin qurunkooda aan fagna horta balkooda horta difaacaan iyaga tooda markisiyadii bay weerareen hanti goosadkii ceebihiisa banaanka soo dhigeen ماشي الدفاع هيد با ويرر ليسو بدلي دفاع لما قالوا نيك halka haduu weeraro horta tan hayno dambeysay taadan xunta aan ka wada hadal la yiraahdo qurun kana meesha xambaarsanta islaamku yaqiintaas waa iftaaxa koobaadan u baahana inaadan shak iyo muran iyo dood ayna gali karin
in qur-aankan iyo hanuunka uu sheegayo uu saxan yahay muran ma gasho. waa laga yaabaa anigu inaan garan waayo masaladan say u cadda anaa garan waaye iyaduna ay khaldan tahay maaha. garasho la-aantaydii haddaan ka dhigo waxaan in la saxayn u baahan yahay de waa khalad, anaa khaldamaya. waa laga yaabaa masalo sharci oo lay weydiiyey inaan xikmaddeeda garan waayo. islaamkuna wuxuu ina baray waxaan xikmaddiisa inaad fahanto qasabba maaha markaad qaadanayso. hadda waad weysaysataan soo ma qof baa hadda soo weysaystay acazakum allahu gadaal bay neefi ka timid wejiga dhaq baa la yidhi meeshii wax ka yimid ba dhaq lama dhihin wejigii hadda uu soo dhaqay qoyanaa baa la yidhi haddana dib u dhaq iyo gacmihii meeshii wax ka yimid ee jebisay weysadana taabasho uma baahna la yidhi dhaqitaan midna uma baahna neef hadday tahay sabab maqribkii 3 baa la tukaday cishana 4 baa la tukaday sabab qayb ka mid a axkaamta waxaa la rabaa in lagu baro addoon la leeyahay oo wixii la yidhi samee sidiisa u qaadan ma tahay mise nin muran ku jiro madax adagoo ilaahay af ku afcelinayaa tahay. ilaahay tusaalahaan arday baa tahay macallinkaa yidhi saa iyo saa yeela sabab baa tiri in lagu garaaca ma istaheshaa maxaa yeelay maxaa sabab ardayda macallinkii ku afceliyey la garaac waa istaahilaa. askari baa tahay madaxdii baa timid oo saa yeel buu ku yidhi sabab baa tiri horta ii sheeg maxaa yeeli soo lagu figeeyo maaha haddaan laguba tooganin sabab waa idabdarro aadamihii weeye rabbi baa saa yeel ku yidhi sabab baa tiri soo afcelis idabdarra maaha. horta maxaa la rabaa axkaamta qaar sharciga qayb ka mida waxaa la rabaa in lagu baro addoon baa tahay sabab adoon dhihin waa inaad samaysaa. aadamihii kii madaxda ku ahaababaan sabab aabbaha baa ku yidhi waraa saa samee wuxuu ku dhaha waxaa tihi sabab walilaahi almathalu laclaa. intan idabdarro inay too lagu garaaco waad ogoshahay rabbigii weynaa maxaa u diiday inaad ku afceliso. qayb baynaan fahmi karin xikmad ku jirta innagu laakiin xikmadda aan fahmayna ku jirta waxaa weeye inaad aqoonsato addoon la leeyahay oo wax walba loo diri kara inaad tahay. uman baa la dhihi jiray iqtuluu anfusakum isdil markaasaa jannada dembiga laga dhaafaya. qodobka labaad aan kusoo gabagabaynaya waxaa weeye hanuunku suu wax u noqdo dhaqan buu u baahan yahay. markii mabda'ii aada meel saarto dhaqan iyo fulin buu u baahan yahay, raacitaan buu u baahan yahay. inaad cibaadadaadii raacdo, inaad mucaamaladaadi suuqaagii raacdo, inaad maamulkaagii siyaasaddaadii raacdo, inaad gurigaagii iyo qoyskaagii aad raacdo. qof walba waxa uu qabanayo iyo meeshuu mas-uuliyad ka joogo inaad raacdo jidkii uu jideeyey. haddaad ilmo tahay inaad raacdo, haddaad waalid tahay inaad raacdo, haddaad xaas tahay inaad raacdo, haddaad zawj iyo ninkii tahay inaad raacdo, haddaad madax iyo wasiir tahay raac, haddaad shacab iyo askari tahayna raac, haddaad ganacsado tahay raac, haddaad siyaasi tahayna raac, haddaad wadaad masaajid joogo tahayna raac. qof walba meesha aad joogto iyo noloshu jidkii la jideeyey ma rumaysay raacoo ku dhaqandi ku dhaqan bay u baahan tahay. marka inaad tiraahdo hanuunkii waan rabaa raacina maayo waa ogahay inuu saxan yahay laakiin uma socdo. soomaalida halkay ka cabiraan ma taqaana halku dhiga yidhahdaan 114 aqaan ka akhrisan maaya ka adag bay dheh iyo kitaab alla diiday baa ka adag. waa kitaab alla waa sheegaya diidayna waa leeyahay. samicnaa maxaa ku xiga sawaatacna labada way jiraan sawa. samicnaa waatacnaana waa sida la rabo maqallay qaadanay oo ku dhaqanay. samicnaa wacasaynaana waa tala diidaya. waatacnaadii weeye halkaasaa la isu fadhiyaa inta badan. shahwaa jirta, shaydaan baa ku lamaan. kii xukun rabay xukunkaa jacaylkiisaa dhaafin raacitaankii. kii suuqa xoolo rabay xoolaha baacsigoodaa dhaafin. kii qoys ahaayey ninkii gabar jeclaaday jacaylkeedaa dhaafin. gabadhii nin jeclaatay ninka jacaylkiisaa dhaafin. waalidkii ilmo jeclaaday ilmaha jacaylkoodaa dhaafin. marna ciil iyo nac iyo colaad baa ku dhaafin. dadaad nacday baa xuduuddii ku dhaafin. waxaan u baahannahay
hanuunkaas aynu macaalimtiisa wax ka tilmaannay inaan raacno oon ku dhaqannaan u baahannahay saasaan liibaan ku gaaraynaa hadba qadarkaan awoodna raalli ahada waa idinku dheereeyey baaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum